waxaan leenahay reer degmada Ceel Baraf aad u mahadsantiin soo dhaweyntiina wacan nabadoonka iyo gudoomiyaha iyo akhayaarta halkan joogto iyo culamaa diinka oo mahad celinayna waxaan idin leenahay ma la yashkuru naas la yashkurullah dadka aan dadku u mahad celin wanaaga loo sameeyay aan sheegin ilaahay uma mahad celiya nicmooyin badan haysanaa haday tahay caafimaad iyo haday tahay nabadgelyo nicmooyinkan waa laga sheekeeyaa waa ma binicmat rabbika fahadith ilaahi adahay subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum min adaabi la shadiid haddaan ilaahay ku shukrino uga mahad celin nabadda iyo dawladnimada aan haysano iyo caafimaadka iyo barwaaqada xoohay lama helaayo haddaad ilaahay ku shukrisaan waa idin ziyaadinaya haddaad ku kufrisaan cadaabkiisa waa mid daran ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadoonka wuxuu ka hadlaa wax badan fidnadana waxa waa intaysan ku soo gaaran ayaa la waxeeyaa fidnada sida uu nabiga noo sheegay kaleey salaatu wasalaam way hurudaa allah la'anada qofka kiciya ayuu fidnada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamuu minkum khaassa wa'lamuu anna allaha shadiidul 'iqaab waxaad ka dhowrsataan fidnaan asiibin dadka dulmiga sameeyay gaaran u asiibin waxaad ogaataan ilaahay inuu yahay mid ciqaabkiisa uu daran yahay Abdullah ibn Umar حديث لقورينا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوله إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على حسب أعمالهم إلهي الدقوم كسود جي عذاب كسود أصيب يا قفل من عمل كيس يا الله صو صار يا مالنت قيامة مركل التقو مت كان وصالح يا لقربه كان هو مفسد هلا وحي لما دهاي لما كلا سوعي رجع البرف مركل نبض يكشقينا يا وقوم هاد علينا سيد الدولة الصومالية إمامك هرشبال وقرب استاجين dawladnimada iyo wanaag uga shaqeynayaan waa uga mahad celinayna waxaan idin leenahay qabiilka waxa lagu talagalay in la isku barto oo hebel iyo abtirka in lagu ilaaliyo laakiin laguma talagelin in la sunnaco laguma talagelin in la isku faano ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ta'aarafu waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu la litahakamu wala litafakharu in la isku xukumo qabiilka ama la isku faano ama la isku xasdo ilaahay ma ogolo subhanahu wa ta'ala diinteena islaamkana ma ogolo dad noocaas ayaan nahay waxaan rabnaa markayna ka faa'iideysan islaamnimadeena waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysan odaynimada iyo xooha uqaasha aqligooda dhalinyarada xoogooda laga faa'iideysto in xooha intaas ayaa loo baahan yahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam qabiil hadii la isku dilo waxa iimaanayso in qof muslim dhiigiisa la baneysto maano in qof muslim dhiigiisa la baneysto oo ay xalaal leeyran waa lagu gaalooba in la daadiyana waxa ka dhalanaysa waciid weyna ka dhalanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an qofkii hal qof oo bini aadan xaq darro ku dilo wuxuu la mid yahay soo dadka laayo la mid yahay waxa la rabaa marka inaadan xooha ina ogaato hal qof oo muslim hadaad gacan ku dhiglo ku noqoto aad disho adoo Soomaali laayay adoo islaamka oo dhan laayay adoo bini aadanka oo dhan laayay la mid tahay arintaas in laga fogaado loo baahan yahay إلهي سبحانه وتعالى في سورة النساء وحكوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قف مؤمنا كسود له أبا المريض سوى جهنم ولبوا وكوا عريا إلهي كمان قالنا إلهي والله عن نضي إلهي ووعروا ذا إلهي نحو دياري عذاب وين وعين ويدينا هل قف أو رلع البرفة أو اللي رلانديرا تاي باسبور كاغا غير هبلا كبحة يوروبتا كو صباح من قجرة هل قف أو ريان يلوغو يمد أما آيات قرآن كأخريو اللي رلع البرف وأهل الجنة من قجرة قبيل الدون وحلقة مهل آخرين وحلقة مهل مركو على الربا إن أرنتاس لغو أغادو وعلى الربا إن قبيلك قفك اسكو قبيلك أتير مركو قردرينيه aad gacanta midigta ka qabato tiraado unsur akhaaka zaaliman oo madluuman sida uu nabiga hore noogu sheegay kaleey salaatu wasalaam walaalka adoo gardaran yahan u kaalmay hadii laga gardaran yahan u kaalmay hadoo gardaran yahay waxa uu kaalmeynaysaa dulmi inaad ka qabato hadii laga gardaran yahay garbiisa istaagaysa sidaas ay diinta islaamka qabtaa islaamku wuxuu qabaa idal taqal muslimaan bisayfihima falqatil wal maqtul fi an-nar laba qof oo muslim hadii dagaal isaga hor yimaadaan waxa waa labadooda ahlu naar waa sida xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam uu noo sheegay marka aniga wax badan ma aqaani laakiin odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada iyo saraakiisha garbeyga taagan ayaa ii wakiish inaan hadlo waxaan leenahay marka anagoo ka socono xoohay noo soo direen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee taliyaha ciidanka dhulka iyo guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxaan idin wadnaa nabad waxaan idin wadnaa nabadgelyo islaamka nabadgelyo astaanay u tahay assalaamu calaykum xal isu yiraahdaa nabadgelyo dushada ha aato islaamkii astaan u tahay
islaamka argaxiso maahan islaamka maahan in dadka la dhibaateeyo islaamka xitaa iska daa in la dhibaateeyo wuxuu uusan ogoleen in qoray qof lagu taago muslimo wuxuusan ogoleen hub lagu dul qaato wuxuusan ogoleen laga naxiyo marka gudoomiyaha waxaan ka codsanaa maadaama gudoomiyihii arrimahan ku quseeyahay gudoomiyaha amniga uu yahay xabad aan laga maarmin dadkan dhiikarada qabo inaan lagu ridin maxaa yeelay oday waayeel oo iska jiifa ama qof maamaha meel jiifto haddii xabad lagu ka rido oo dhiikarkaas ay u dhimatay dhibaatadeeda leedahay marka waxaan leenahay iidan hal xadido insha Allah ta'ala